wixii oo dhan la wada iibinaya qofkii doonaya inuu gabar soo iibsado xerada seelada xoolaha ayuu tagi jiray qofkii doonaya inuu iska sii iibiyana seeladu geyn jiray xoolaha kale soo ma aragtid idinkoo gacmaha ka xirxiran dhar yar oo cawradiina qarinaya xiran oo suuqyadii dhextaa taagan idihii iyo arigii iyo riyihii soo ma aragtid ay sidaasay ahayd markii dambe oo ay dooneen in ay cadaalad ku sameeyaan oo ay xaqaagii ku dhiciyaan shir ay meelaha Europa ku qabteen khaasatan France cadaalad meeshii ugu sareysay oo ay gaareen waxay ahayd in ay ka dhigaan bani aadam laakiin bani aadam loo abuuray in uu u adeego oo uu u khidmeeyo ragga ayaa laga dhigay ragga la mid maahid laakiin waxa lagu abuuray inaad iyaga u khidmaysid inaad ragga u adeegtid oo aad hawlahooda u fulisid adeegooda u sahashid ayaa lagu uumay guriyahana maadin seexan jirin banaankaad seexan jirtay waa cadaalad Europa meeshii ugu sareysay oo ay ku geeyeen halka jasiiratul carabna nolosha dhanba ay ku diideen oo ay ku aasi jireen adoontii Allah adigan kula hadlaaya xaqaagii markaa dabadeed ya adigoo adduunkan ku dulman adduunkan ku xaqiran adduunkan ma aragtaa amalkaagii iyo didiiladaadii uu dhamaaday mustaqbal aadan meel u ogeyn ayaa محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ayaa xaqaagii u istaagay oo dhahay raggii hortooda ka yiri oo ka sheegay man ibtuliya min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar ya qofkii ilaahay uu ku imtixaamo gabdhahan ilaahay uu siiyo ilaahay uu ku irsaaqo shay hal ilaa iyo wixii ka sareeya ya oo gabar oo haweena oo markaa uu ihsaan fala shardu wuxuu uga dhigay in lagu naxariisto kii ku dhalay inuu ku naxariisto kaad la dhalatay inuu ku naxariisto wax ku baro ku adeego markaa dabadeed ayaad aduguna aakhira anfacaysaa xijaab buu ilaahay ka dhigay xijaab ayuu ka dhigay wada ilaahay wuxuu ka dhigay markaad xoolo ahayd dabadeed wada jannada rag uu ku gala ayuu ka dhigay hooyada kugu galaysa aabaha kugu galaya insaan walba oo ku naxariistaa janno kugu tagaya ay qiimi inta ka badan cidda ku siinaysa waa maxay dhaqamadan iyo xeer hoosaadkan iyo xeer jajabkan ay ma aragtaa bani aadam ku dajiyay miyuu ku siinayaa weeyaan kuma siinaya ilaahay qiimi buu ku yeelay marka diinta waa inaad u istaagtaa adiguna marka caadada xun waxa kamid ahayd baanu niri ma aragtaa khamriga la cabaya khamaarka la ciyaaray oo meel walba ku fiday gabdhaha la aasayay waxa kale oo kamid ah qatlul awlaad ilmaha oo la leen jiray mutlaqan ragooda iyo haweenkooda maxaa loo dilayaa waxa loo dili jiray khawfan min al-aar ceeb ayaa laga baqaayay waxaa laga baqayay ma aragtaa gaaja laga baqayay gaajo iyo abaar ayaa laga baqayay way leen jireen ilmaha yar yarka ah ragooda iyo wiilkooda iyo gabadhooda way leen jireen iyagoo baqaaya markii dambe ilaahay baa xaaraantinimay haddii ay ka baqaan reer Maka ama jasiiratul carab dadkii deganaa in abaar ay ku soo fool leedahay oo roob la waayo oo ma aragtaa raashinku yaraado waxa weeyaan si loo noolaado dadka waaweyn ay u noolaadaan ilmaha la leen jiray ragooda iyo haweenkoodaba way leen jireen caado ay ka sinaayeenna way ahayd ilaahay isagoo ku canaananaya oo arrintaasna xarimaya ayaa suuradaha qaarkood uu inoogu sheegaya oo uu leeyahay walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq ولا تقتلوا أولادكم من إملاق جاجه ودلنا المهينة إذن كو كبقى يجاجو إناد جاجوتان إذنك أما إيجا آد أبقضان أو آد كبقضان إن آد ويدان وحاد سيسان أبدكينا هقول ليننا إرزاق ذا إذنك قعنتكم هايسان إذنك إيجوبا وحا إرزاق يوا الله سبحانه وتعالى إرزاق ذا حقي سيك إماده هدي أود آلاده إلهي أوكسيو أديقا دل بقل إنك بدن دل وحبها أغبقن محاوع إرزاق ذا
ilaahay baa qoray intaanan lagu abuurin adiga ama intaan cunuga aan la abuurin ayaa la abuuray irsaaqdaadii oo ilaahay uu ku diyaariyey. adduunkan maadan imaanin markii lagu diyaariyey, adigoo 4 bilood hooyadaa uurkeedu ku jira ayaa irsaaqdii aad cuni lahayd adduunkan lagu siiyey oo ilaahay uu ku qoray. marka waxba ha oga baqin. marka waxaa lagu leeyahay ha dilina ilmihiina gaaji idinkoo ka baqaya. aayadda kalena waxay leedahay walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq, ilmihiina idinkoo ka baqaaya gaajo iyo fakri idinkoo ka baqaaya ha u dilina, marnaba ha u dilina. waxaa kaloo kamid ahaa caadooyinka yani gaajadan laga baqaaya haddaan ku yaro noqdo, waxaa kaloo kamid ah ilmahoo kale inta badan hadda waxyaabaha ka jira caalamka oo laga wada siman yahay waxa weeyaan, waxaa lagu leeyahay markaad gabadheenu haweenkeenu markay tagaan meelaha oo ciyaadooyinka ama clinicska markay tagaan waxaa la yidhaahdaa adigu 3 haddaad dhashay ka afraad xageed u wadaa, maxaad siinaysaa, maxaad ka shaqaysaa, dakligaaga iyo incomekaaga kuguma filla adiga iyo labadan cunugee aad dhashay, wax caafimaadkoodii, wax akhriskoodii, iskuulkoodii, mustaqbalkoodii, wixii kayd loo dhigi lahaa, wixii caymis iyo insurance lagu gelin lahaa, noloshooda lagu ilaalin lahaa, wixii geerida looga celin lahaa, wixii cadaab looga celin lahaa, wixii xoolo shaydaan waa kaasa ay waa maxay dadka wax kale aad dhalay sidaa lagu leeyahay. ya waxaasay marka dadka maaragtaa ku yar cabsiyanayaan oo ay waswaas ay ugu ridaayaan. marka waxaasoo dhan ba haddii intaad yeeshid wallahi waa run, biilkayga uguma filla, waxaasaa la iisoo diraa, inkankaygu waa intan kan labadan ma korin kari, haddii mid saddexaad u yimaado maxaan siinayaa, so waa inaan xiraaminka, waa inaan waxaas isticmaalaa, kaniini isticmaalaa, waa inaan maaragtaa ya aan joojiyaa. waxaasoo dhan xaaraam weeyaan. haddiiba qalbigaagu uu soo galo sababtaa u joojinaysid ilmahan, ilaa ilmaha waxa weeyaan waa nimco ilaahay qaar caqiim buu ka dhigaa. dad baa 10 sano 20 sano isqabo aan waxba isu dhalin, imtixaan. qaar baa rag keliya la siiyaa, qaar baa haween keliya la siiyaa, qaar baa laysugu dhafaa, qaarna caqiim buu ilaahay ka dhigaa. aye qaar baa ma aragtaa ubadkii adigii ilaahay hadduu laba ku siiyo mataana oo weliba sanad walba aad dhalaysid ya waa kana haddana waxaad leedahay waa xiraaya. aye imtixaankii waad ku dhacday. ilaahay wuxuu ilmaha ku siinayo waa imtixaan weeyaan. kan loo diidayna ma aha ilaahay inuu necab yahay, kan la siiyeyna ilaahay uu jecel yahay. labaduba kan la siiyeyna waa imtixaan, kan loo diidayna waa imtixaan. marka haddii adigu aad dhahdid waxaan siiyo ma helaay iyo inkamkayga uguma filla oo mustaqbalkii iyo qaybkii iyo wax aadan shuqul ku lahayn aad faraha la geshid, marka iyada oo aad sidaa ku maaragtaa ya aad ku joojisid ilmihii, waxa weeyaan waa aayadaas ha ku qabanayso walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin. hawlo waxaad faraha la gashay aadan shuqul ku lahayn oo kaa weyn, ilaahay wuxuu ku leeyahay adiga iyo iyaguba aniga irsaaqa. marka iyada ah waxa weeyaan arrimahaga arrimo waaweynay galayaan. marka iska ilaaliya. dadkii hore ee ilmaha layn jiray fakri iyagoo ka baqaayo kalaad noqonaysaa, adigana ilmihii baad laynaysaa oo si dadban, kuwaas si toosa hadday u layn jireen adiguna si dadban baad u laynaysaa ilmihii. marka marnaba qalbigaaga yaanu gelin in maaragtaa waxyaabaha dadkan ay sheegayaan, klinigada ay sheegayaan, dadka ilaahay ka fogay jaahiliinta ay sheegayaan. marka iska ilaali. ko taada kale waxyaabihii kale ee caadooyinka xumaa ee jiri jiray waxaa kamid ah tabaruj الnisaa, haweenkii dharka inay dhigteen oo ay isqaawiyaan markay banaanka aadayaan. asturaadii in ay ka tagaan, asturaadii oo dhan inay ka tagaan oo ay ka fogaadaan. asturaadda inay ka fogaan jireen, dhar mayan qaadan jirin, ama dhar xunxun bay qaadanayaan, ama dhar jirkoodii ma aragtaa muuqday qaadan jireen, ama dharkayba gaabsan jireenba. teeda kale waxyaaba badan ay gacmaha, lugaha iyo dhaxda meel walba isaga xiri jireen. tallaabo markay qaadaba ma aragtaa khalkhaali balaayo, markaasay jabaq qofkii wadaadoo hoos u degan oo diintiisa iyo kitaabadiisa raacanaya xataa markuu dhawaaqaas maqluu ma aragtaa waa ayuu fiirin jiray. waa maxay waxaan agtaada, waa maxay jabaqdan agtaada iyo buqbuqdan agtaada ka yeeraysa, in la fiiriyay rabaan. tabaruj ayay samayn jireen haweenkii hore.
قرآن كواتن وكهض لا يؤوليه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ورهوين يهو جوغا قريهنا جوغا كوئك هذا قريهنا رقا إذين سو شقين يو بنانك آذي جوغا هدي لكن دن أي ماركتا أي إذين يردو أو ظروفتا أي إذن كلفتو أو أتربتان وحبرش إن آدان وحصو أخرستان أما حاجة ديالتان وأد بنانك دونتان إن آدان ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جاهلين تيهوري ما قبل الإسلام sidii ay banaanka ku aadi jireen iyagoo qaawan oo dharla sidaas oo kale ha ku bixina oo waa maxay dhar khafiif ah xiranina dhar gaagaaban oo jirkiini iyo cawradiini iyo maaragtaa muujinayana maaragtaa ha qaadanina timaha ha qaawinina diracan beer qariiha xiranina bahashan xunay funaanada ee saddex jirka ilmaha yar yar ay qaadanayaan islaantu weyn yaanay qaadanin gabadha gashaantida ayaanay qaadanin bahashan hoos loo jiidaya hadi jeer bahalka xunay jeeniska ee un ku dhigan ee koobka muujinaya iyo baryaha waxaas ha qaadanina waa tabarruj al-jaahiliyati al-ula weeyaan waa dharkii jaahiliga dharka imika aad ku faanaysaan ee qaaliga ah ee adduunkii oo dhan buuxiyay ee gabadha meesha ugu wanaagsan markay aadaysi iyo shirarka markay aadaysi aroosyada dharka ay xirato oo ay ku faanta iyadoo waliba mutacallimad reer magaalada iska dhigaysa waa dharkii jaahiliintii hore ay qaadan jireen weeyaan bal fiiri ibliiska wuxuuna baday eeg in aanu maanta ku faanno dharkii jaahiliinta ay xiran jireen ya jasiiratul arab laga xiran jiray dharkaasaa maanta aan ku faanayna wazayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum weeyaan يا كل حزب بما لديهم فرحون وحاني مركو كفرحسينا وين كينا شارحونو قابن oo laba gulus leh iyo bahal jiinis oo ku dhigan iyo kaba qoobiya dhaadheer afkii guduudan dawacdig soo cabtay aad moodid waxa saamaanta la faraxsan oo ay ku faraxsan yihiin oo ay soo faanayaan gabar walbo aragta markaas waxay leedahay abay wallahi ma sha Allah wallahi dharkan waad ku baxaysaa dharkan adiga un baa lagu sameeyay xageed ka soo iibisay waa imisa iyadoona inay soo qaadatay doonaysaa qudwaad noqonaysaa markaa iyada ah qof walbo dharkaas arka dambigiisa waxa weeyaan adiga is qaadanaya qof walbo kugu daydo kaaga dayda dharka inuu xidhana dambigiisa adiga qaadanaya kaagiina waa ku gooni ay gabadhii tabarrujkaas ku baxda aayad ay diidayso ee qaawanaanshaha ah ee banaanka ku aado ilaa ay ka soo laabata inta indha ah ee arkay ama ku dhacay waxa weeyaan dambigeedii baad la soo laabanaysaa waxaad soo noqonaysaa adigoo dambi qaadi la baad soo laaban marka iyada ah haddaad sidaa ku dhimatidna waxa weeyaan masiirkaagii halka ku dambeysay ilaahay baa yaqaana laakiin culimadu ma ayan amaanin ilaahay ha laga baqo jaahiliintii hore wixii xirin jireen ha laga tago ha la iska dhaafo teeda kale haddii aad iscarfisidna waa sidoo kale xijaabka sideedaba ilaahay wuxuu ugu talagalay xijaabka xirta marka la leeyahay quruxdaada qiimiga badan qaaliga ah dheeman baa tahay lul baa tahay jawhar baa tahay dahab baa tahay ilaahay baa qiimo kuu yeelay qiimahaagaa la rabaa in ma aragtaa ilaahay uu ku asturo uu ku ziyaadiyo quruxdaadu ilaahay ma aragtaa lulkan qarsaa lagu leeyahay yaani dhurwaayada bashariga ah insaanka ah yaani ku dafin adigiina waa diidan tahay hay waxaad isu qiimo tiraysaa marka gabar yahay marka quruxdan aad isqurxinaysid ma aragtaa aad balaayada ismarinaysid aad rinjiga ismarinaysid aad iscarfinaysid waxaasoo dhan ba waxa weeyaan tabarruj al-jaahiliyati al-ula waana caadooyinkii xumaa ee sayyi ahaa qabiix ahaa ee waayidii hore qabla al-islaam jiri weeyaan xaaladaada maanta gabar yahay maxaa uga eg xaaladii hore ma qabla al-islaam